howlgal qorshaysan oo ka dhana kooxda cadowga ah ee Daacish oo ay hormuud u yihiin ciidamada difaaca Puntland ee BSF iyo ciidamada daraawiishta Puntland ayay ka fuliyeen buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari gaar ahaan dhulka buuraleyda ah waxaana ka mid ahaa deegaanada howlgalka laga fuliyay Il iyo Cameyra Hadin Lamaan iyo wadaayinta laba Cameyra. Howlgalkan ayaa daba socday howlgaladii ay horey ciidamada Puntland ugu qaadeen dhulkii horey ay ugu dhuumaalaysan jireen kooxda Daacish iyo baadigoobka shakhsiyaad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dilkii fulaynimada ahaa ay u geysteen Ilaahow naxariistee gudoomiyihii degmada Beledhidin Maxamed Axmed Muumin oo lagu dilay gudaha degmada Beledhidin ee gobolka Bari. Duulaankan oo qaatay muddo dhowr maalmood ah ayay ciidamadu waxay ku beegsadeen talisyo ay ku dhuumaalaysan jireen haraadiga kooxda nafla caariga ah ee Daacish waxayna gabi ahaanba ciidamadu ay cagta mariyeen isla mar ahaantaana ay burburiyeen talisyadii iyo godadkii ay Daacish ku dhuumaalaysan jireen. Intii howlgalku socday ayay ciidamadu soo qabteen shakhsiyaad looga shakisan yahay inay la shaqeeyaan kooxda Daacish. Ciidanka ayaa waxay bogaadiyeen la shaqeynta iyo garab istaagga bulshada.